haweeney in qaadi laga dhigo oo garsooro laga dhigo sharcigu ma ogola nabigana sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii bukhaari iyo keyrkii ay warinayeen wuxuu ku yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a qolo ma aflaxayaan yacni taladii madaxtinimadii haweeney u dhiibay garsoorkuna wuxuu ka mid yahay waa qismi min alwilaaya qayb madaxtinimada ka mida mana aha nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh iyo sharciguma markuu leeyahay haweeney qaali lagama dhigi karo macnaheeda ma aha in iyada la xaqirayo oo la leeyahay waa qof aan waxba garanayn waa qof aan mujtamaca aan maaragtaay waxba ugu oolin waa qof aan sharaf lahayn waa qof aan fadiilo lahayn dhinacaasoo dadka mustashriqiintu ay u fasirayaan hadalka loolama jeedo masaladan oo kale markay timaado dadaa si khaldan hadalka u fasiray kuwa mustashriqiin oo la yidhaaho gaalo ah mustashriqa sidiisaba waxaa weeye waa daa'ifo koox gaalada ka mid mustashriq haddii la yidhaaho waa daa'ifo gaalada ka mida waxay samaynayaan shareecaday bartaan qur-aankii ay baranayaan axaadiistii ay baranayaan fiqigii ay baranayaan laakiin maxay u baranayaan sharciga islaamka meelaha dulduleelka shubahaad meelo ay ka galaan ee ummadda si ay tashwiish uga furan ay u baranayaan waxaa jira marka dadka noocaas oo kale ah mustashriqiin ah nimanka mustashriqiinta ah dadka ku hoos barbaaray oo islaamka naftooda ama ay macallin u noqdeen oo jaamacad ay macallin uga noqdeen ama ay deris la noqdeen oo muslima waxaa dhici karta saameyn inuu ku yeesho gaalka mustashriqa qofku jaamacadda macallin uga yahay ama iskuulka macallin uga ahaa markii meeshan fiqigan masaladan oo kale la marayo waxaa laga yaabaa masaladii inuu u tashwiihiyo si foolxun uu ugu sawiro mana aha yacni marka sharcigu leeyahay haweeney qaali lagama dhigi karo haweenkii alla yasay ee la soo boodaya ma aha yasay bal waa raxmad iyaga looga naxariisanayo mansabka dhibka badan mansabka qadaha waa mansab aad u dhib badan waa raxmad iyaga looga naxariisanayo mansabka dhib badan leanna waxaa weeye nidaamka khilqiga ah oo haweeneyda ilaahay u abuuray ayaan mansabkan shu-uuntiisa iyo arrimihiisa aan ka bixi karin maxaa yeele haweeneydii waxaa ku imanaya dowra shahriya wax la yidhaaha ku yimaada bil kasta dowra shahriya imanaysa dowra shahriya waxaa weeye yani mararka ay fasaxa tahay haweeneyda oo dhiigga caadada uu ku dhacayo waxaana la ogyahay cilmiyan oo cilmi nafsi loo ogaaday dowladda shahriga marka haweeneyda ay ku timaado xanaaqeeda degdegay walidaalika ragga waxaa lagula dardaarmaa markii dowladda shahriga haweeneyga uu hayo dhiigga ay qabto in maaragta aad loogu naxariisto inaan lala doodin inaan lala murmin lanno qofka waxaa weye dowladda shahriyada intay haydo dareenkeeda kacsan xanaaqeeda degdegay qaadigana lama doonayo xilliyada uu xanaaqsan yahay inuu wax xukumo nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi laa yaqdi alqaadi wahuwa غadbaan qaaligu wax ma xukumi karo isagoo caraysan xataa qaaligii ninkii ragga ahayan loo ogolayn xilliyada uu caraysan yahayoo duruufihiisa ay kacsan yihiin ama uu aad u gaajaysan yahay ama uu aad u haraadsan yahay ama hurdo ay hayso lama ogola qaaliga marka mar walba yani waxyaalaha dabiicadiisa wax bedelaya shu-uun dabiicada qaaliga bedelaya markuu ku sugan yahay lama ogola qaadigu inuu garsoor qabto iyadii marka bil walbaa shu-uuntaasi ku imaanay bil walba waxaa ku imanaya dowla shahriya imanaysa oo caradeedii iyo caadifadeedii uu ka caysan yahay u degdegayo waxaa kaloo imanaya in maaragtahay xaamilo ay noqonayso oo uur ay qaadayso waa dabiicad ilaahay u abuuray ma ahayo sida iyada la yasayo inay xaamilo noqonaysaa imanayso 9 bilood ay uurkii ku sido haweeneyda waxaa la ogyahay marka ay uurka ay sidana iyadana caadifadeedu way kacsan tahay cilmu nafsiga lagu ogaado caadifadeeda kacsan ma xamili karto xataa hadalka caadiga ah bal qada iyo dad inay dood ku kala fasliso iyo qadaayaad waaweyn oo dhiig iyo mumtalakaad iyo waxyaalo waaweyn inay xukunto iska daayeen hadalka caadiga ah dhibay culayska haysta awgeed ma aha in la diidayo laakiin culaysa haysta caruur dhana lagu dhex abuuraya caloosheedii oo cijiyo ku yeelanaya dhexdeedii oo lafa ku yeelanaya oo tin ku yeelanaya caloosheedii dhexdeedii qof marka duruufahaas ay ku kacsan yihiin duruufaha mansabka qadaha ma xamili karto xilliyadaas oo kale 9 bilood uur ay leedahay bil kasta dowla shahriya ayaa u imanaya midda kale mararka qaar waxaa loo baahan yahay in yani alkhalaa bilkhusuum dadka doodaya mararka qaar waxay u baahan tahay si gooniya in loo waraysto
oo qol inta lala galo si xogtooda loo helo qol inta lala galo si gaara qaaligu uu u liso maskaxdooda iyadina xilligaasoo kale taasoo kale ma samayn karto inay nin ajnabi intay soo wado ay qol la gasho oo tira waa lisahay maskaxdiisaan lisahayaaho bal xogan ka raadin inay tiraa kama bixi karto shu'untaas marka sharcigu wuxuu fiiriyey duruufaha khaaska ah oo haweenka heestuu fiiriyey waana raxmad looga naxariisanayo mansabka garsoorka iyo qadaha laakiin ma aha sida ay u dhigayaan ama ay u fasirayaan nimankan mustashriqiinta la yidhaaho iyo dadka ay soo barbaariyeen ma aha siday u fasirayaan in la yaasayo in lagu yiidayo adiga hadda tusaale ahaan haddii dhagax weyn oo awooddaada ka weyn haddii lagu yidhaaho dhagaxan ma qaadi kartid adiguna aad arkayso inuu tabartaada ka weyn yahay ma lagu yaas qofkii ku yidhaho war dhagaxan ma qaadi kartid dhibaatuu kuu geysanayo qofkaas ma ku yaas mise uu kuu naxariistay kuu naxariistay soo maaha danaha uu ka shaqaynayo dhagaxa la qaado waxaa ka culays badan mansabka qadaha haweenka marka dowlaadka shahriga ku dhacaya iyo muddada xamliga iyo sidaan iyo masaladan oo khalwo iyo khaali noqosho u baahan iyo sharcigu markuu leeyahay haweenku ma qaban karaan waa naxariis naxariis weeye tashriif weeye iyaga la sharfayo iyo ikraam iyaga la karaamo